dhammaan waan idin soo dhaweynayaa waxaan halkan doonayaa laba kelmadood kaga hadlo labada kelmadood noqonaya number 1 markii aan aragnay baahida degmada oo ah inay degmo xoolo dhaqataa tahay waxaan u soo magacaabnay waaxahan anoo la kaashanayna wasiirka xanaanaha xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudane Siciid Sulub Mustafa oo ah muxuu hayday dhakhtar bartay xanaanada xoolaha oo deegaanka ka soo jeeda taa markaan ku guuleysanay haddana waxaan doonay inaan xaruntii muxuu hayday qalabayno oo aan dawadii qalabkii u baahnaa muxuu hayday aanu keenno tii labaadna waanaga maanta bishii 3 bishii 12 keenay waxaan baan ugu hadhay kulli gaadiidkii u kala gooshi lahaa deegaanada hoos yimaada muxuu hayday degmada markood waxaan kula dardaarmayaa muxuu hayday deegaanka xoolo dhaqatada inay ku xidhnaadaan xarunta xanaanada xoolaha ee u adeegaysa caafimaadkii xoolaha leenaysana muxuu hayday wixii xanuunada deegal fadhiga ahaa la dagaalamaysa mar labaad waxaan muxuu hayday kula dardaarmayaa Mustafa anaga wasaarad ahaan waxa gaar ahaan waxa caafimaad ahaan waxa wajibaadkaygu ahaa inaan xaruntii ku soo magacaawno oo aan la kaashano wasaaradda madaxda sare mar labaadna inaan muxuu hayday aanu kaga shaqaysana xaruntii dawadii qalabkii u baahnayd keeno labadiiba waan keenay isduwo firfircoon gobolka waa loo soo magacaabay aduguna dhalinyaro firfircoon baa tahay inaad deegaankii la shaqayso soo dhaweyso muxuu hayday meel kasta xoolo ay joogaan aad ka war hayso muxuu hayday oo aad maxay jeer la socoto deegaankana kulleedii waxa weeyaan waa deegaanka ka soo jeeda anigu waa reer abtiga weeyaan waxa weeyaan meeshii hooyaday ku dhalatay markaa deedna waxa ka maxay kula dardaarmay inaad si wanaagsan ugu shaqayso qurux badan oo aan hadal daba ka imanin kale xildhibaan firfircoon oo deegaanka u soo baxay deegaankii nimankii xildhibaanadii kala dhaaf marka ayagana waxaan ayagana kula dardaarmayaa in xildhibaanka muxuu hayday ay dardaarankiisa qaataan si qurux badan oo la shaqeeyaan inanka ugu horeyn mahad Ilaahay baa iskale waxaan mar labaad mahad celinaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga maanta waxaan joognaa xanaanadii xoolaha ee degmada Waraabeeye taasi oo maanta shaqadeedii la dardar gelinayo uu ku mahadsan yahay wasiirku mar labaad xilka uu iska saaray degmada iyo isagoo u kuurgalay isaga iyo shaqaalihiisuba baahida loo qabo xanaanada xoolaha degmadan runtii waa degma fac weyn waa magaalooyinka ugu horeeyay ee degmada Burcama kala yimaado gobolka la dhisay kontonkii ayaa la degay waxayna ahaan jirtay taliska ciidankii gaaskii saddexaad siiba madaafiicda iyo gawaadhida gaashaaman meel bulsho weyn ay deganaan jirtay bay ahayd waana meel xoolo dhaqato badan ay degan tahay maaha beeraley sidaas awgeed dawladdu wax badan bay ka qabatay tanina waxay ka mid tahay waxqabadka iminka u dambeeya ee dawladdu qabatay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin xilka gaarka ee xagga xanaanada xoolaha ee maanta aanu furayno dawladdu iyo cid kastoo gacan ka geysatayba waxaan intaa raacinayaa sida ay bulshada degmada iyo maamulka degmaduba ay sheegeen aad bay ugu faraxsan yihiin waxqabadkan maanta halkan yaala iyadoo dawadii bilaash loo keenay dhakhtar deegaanka ka tirsan oo deegaanka dadka ardayda ka baxday ana uu maanta mariyo loo soo magacaabay maanta waxaan joognaa degmadii Waraabeeye waxaynu maanta insha Allah furaynaa xanaanadii xoolaha ee degmada Waraabeeye oo dib inay shaqeyso loo furayo dawadii iyo dhakhtarkiiba waanu keenay marka insha Allah waxaan doonaynaa xanaanadu shaqeyso sidii hore fadhiidka hay'adda ka baxdo ay degmada ballaaran u shaqeyso marka dadweynaha waxaan kula dardaarmaynaa inay xanaanada la shaqeeyaan wixii xoolo ka xanuunsanay halkan keenaan marka dhakhtarka cusub aan u soo qornay inay la shaqeeyaan